waxaa walaac badan Soomaalida ku abuuray hadal ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo uu ku sheegay in dalkiisu dhisanayo ciidamo bad iyadoo la wada og yahay in dalka Itoobiya uusan lahayn wax bad dad badan oo Soomaaliya ayaa durba bilaabay inay isweydiiyaan sida uu dal aan bad lahayn ku yeelan karo ciidamo badeed isweydiin kaliya ma aha hadalka ka soo baxay Itoobiya wuxuu abuuray walaac badan oo ay Soomaalidu ka qabto qorshahan cusub ee Itoobiya sanadihii u dambeeyay Itoobiya waxay si muuqato u maamuleysay maamul goboleedyada Soomaaliya waxaana dadka qaar walaaciyay in qorshahani uu yahay inay qabsadaan xeebaha Soomaaliya iyagoo ka faa'iideysanaya marxaladda ay Soomaaliya ku jirto waqtigan iyo maamulada badan ee isdaba yaacaya oo ay dhamaantood iyada maamusho dhawaan waxaa la socotaan in Itoobiya ay saami dhan 19% ka heshay dekedda Berbera iyadoo aan wali la aqoon qaabka ku heshay waxay sidoo kale dadka isweydiiyeen marka laga soo tago Soomaaliya afarta dal ee kale Itoobiya xuduudaha leh ee xeebaha leh dhamaantood waa dalal leh dawlado dhisan oo awood leh waana Kenya, Suudaan, Eritrea iyo Djibouti sidaa darteed Itoobiya dalalkaasi kuma gardaroon karto laakiin dalka kaliya ee baylaha u muuqda waa Soomaaliya dib kale ka daran baa jirta oo taa ka dhumuc weyn nimankii hawaash naga dhacay iyo deenta labi hawle dhoobada awaariye ragii faafal naga dheelmay dhagax buur ilaa dhoobo madow tan iyo dheekaasoo ceelkii dhanaane iyo ragii deenta naga xoogay dhoobada awaare iyo ragii faafal naga dheelmay dhagax buur ilaa dhiito iyo waraha dhaadheer balafta dhaqeeya booriyo afdheer iyo wala dhinaciisa kaymaha dhamaajada leh iyo dheega xamaraadba isku dhoon dharka imaale iyo dhoolihii adare dhambal iyo ilaa dir dhabood yaab u dhimanayso dhulka iyaga ragii naga dhacay dhaqasho noo diiday maantana waxay dhaan fureen kobaan la dhaadayne saankoodu u dheeriyihiya baaqa loo dhigay dhigmanimaan lahayn bay la tahay dheelaliya beene dhiganaha duruusta iyo haddaad dhugato taariikhda Falastiin sidii loo dhacaan dhalan wadaagnaaye aniguna odhaahdaan dhigaa dhaxalgal weeyaan dhagxumadu intay ka fogtaa la iska dhowraayo haddaan hanada wada dhiiran iyo geesiyo u dhaaran haddaynaanu dhiman diinta iyo dhaadashada ciidda dhuuxiyo haddaynaanu shubin dhiigga iyo heenka maba dheera goortay dalkaba inaga dheelmaane dhaqsadoo ka kaca lama fadhiyo dholondhol ceebeed waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan u sheego dadka hadda soo baraarugay hurdada ka toosay walaaca weyn ka qaba qorshahan cusub ee Itoobiya ciidamo bad ku dhisanayso in aad soo toosteen filimkii soo socday 30 sano u dambeysay oo dhamaad ku dhow Soomaaliya inay noqoto cad hilib ah oo meel banaan yaala ma wax shalay iyo maanta soo bilowday oo qorsho soo socday sanado badan oo heerar kala duwan soo maray waxaa jira dagaal taalo iyo awiil hadda filimku wuxuu u muuqdaa mid dhamaad ah waana waqtigii Soomaalida loo muujin lahaa qorshihii soo socday nus qarniga Itoobiya ayaa weligeed aaminsaneed in dhulka Soomaalidu iyadu leedahay waxaana taariikhda caruurta loogu dhigaa in ilaa magaalada Balcad oo 36 kiiloomitir dhanka waqooyiga magaalada Muqdisho kaga aadan ay tahay xuduudda Itoobiya Itoobiya waxa uu soo carfaysa guushii waxay aaminsan yihiin inaysan waqti badan uga harin himladii dheereed oo ay lahaayeen oo ay naf maal iyo maskaxba u hureen in qorshihii Itoobiya uu yahay mid dhamaad ku dhow waxa muujinaya waxyaabo badan oo dhacay oo aynu marqaati ka nahay waxa kamid ah tirada qunsuliyadaha oo ay magaalooyinka Soomaalidu ka sameysteen Itoobiya waxay xarumo safaarada ay ku sheegeen ka dhisteen Baydhabo Garowe Kismaayo Hargeyso iyo maamulada kale oo ay xarumo ku meel gaar ah ku leeyihiin waxaana ugu dambeysay qunsuliyad ay ka fureen magaalada Burco waxa ayna mas'uul uga dhigeen nin reer Burco ah oo ay dadku ku ogaayeen inuu ahaa nin Burco ku nool Soomaaliya Ilaahay waxaan ka baryaynaa marka hore in xilkana Allah noo fududeeyo arrintan iyada ana shacabka iyo mas'uuliyadda aan qadnay inaan sideeda uga soo baxno waajibaadkayga aan gudano ayaan ku rajaynaa arrintan maanta halkan soo gaadhay rag baa u soo dhabar adeegay oo maanta inay midho dhasho intaaba processka ku soo jiray waqtigooda iyo maalkooda iyo nafahooda iyo teamkooda siiyay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxa aan markaa insha Allah aan ku wada shaqayn doonaa qorshaha sharciga ah ee u degsanay inaga inoo dhaxeeya insha Allah anaguna waxa aan isku dayi doonaa inaan jahliyada gobolkan Togdheer ama Burco inaan iyadana si sinnaasha aan isugu xidhno waxa intaasi ka siiyaa badan qaabka shacabka loogu tumayo oo keega loogu jarayo marka la gaaro dabaaldegooda halkani waa magaalada Hargeysa oo looga dabaaldegayo maalinta qowmiyadaha Itoobiya waxaan mar labaad hambalyeynaya qowmiyadaha Itoobiya waxaan hambalyeynaya horumarka gaareen
waxaan hambalyeynaya dimuqraadiyadii nabadii ku shaqaynaya Ethiopia waa dalka koowaad ee Somaliland ay walaalayeen waa dal ay aad xidhiidh dhow leeyihiin waa dad jecel Somaliland jiritaankeeda halkanna waa magaalada Garowe oo looga dabaaldegayo isla xuskaasi horumarkii iyo maamul wanaagii uu ka dhexeeyay dalka Mala Zenawi inaan wax iska bedelin بتذكر أني أمان كريكيز نشوف كبر الله منستر ملا زيناوي تلو يهرا وعدنا تركبوا بتذكر من قد يهرون دالله بس أشوراي إذا بكتل halkanna waa magaalada Xamar oo iyaduna laga xusayo intaas oo dhan markaan meel iska soo dhigto waxaa jira arin kale oo cadeyn dhab u ah qorshaha Itoobiya Soomaaliya ka damacsan tahay ma og tahay oo ma la socotaa in Soomaaliya ay tahay dalka kaliya ee safiir ahaan dawlad kale ugu soo magacaawday qof isla dalkaasi u dhashay safiirka dalka Itoobiya ugu magacaaban Soomaaliya waa Jamaaludiin Mustafa Umar waana shakhsi Soomaaliya oo ka dhashay beelaha Soomaaliyeed ee koonfurta dega waxaa jirtay su'aal is weydiiyo oo ahayd maxay ugu magacaabeen qof Soomaaliya iyagoo awood u leh inay soo magacaabaan nin Amxaariya ama Oromiya ama qoomiyadaha kale ee kala duwan ee dalkaasi ku nool waxaan filayaa inaydan jawaab kale igaga baahneen oo ay arintu cad tahay bal daawada safiirka Itoobiya oo ka hadlaya xafladii keega weyn looga jaray waxaa farxad weyn inaad nagala soo qaybgashaan munaasabadan 27aad ee ku beegan 28 bisha May waa maalin weyn oo xusuus badan nagu leh Itoobiya waxay aaminsan tahay in Soomaaliya ay tahay qayb ka mid ah qoomiyadaheeda waxayna sidoo kale aaminsan yihiin in maalin uu la wareegi doonaan nabad yaab u dhimanayso dhulka iyaga raggii naga dhacay dhaqasho noo diiday maantana waxay dhaan fureen kobaan la dhaadayne saankoodu u dheeryihiin baaqa loo dhigay dhigmanimaan lahayn bay la tahay dheelaliya beene dhiganaha duruusta iyo haddaad dhigato taariikhda Falastiin sidii loo dhacaan dhalan wadaagnaaye aniguna odhaahdaan dhigaa dhaxalgal weeyaan dhagxumadu intay ka fogtaa la iska dhowraayo haddaan hanada wada dhiiran iyo geesiyo u dhaaran hadaynaanu dhiman diinta iyo dhaadashada ciidda dhuuxiyo hadaynaanu shubin dhiigga iyo heenka maba dheera goortay dalkaba inaga dheelmaanay dhaqsadoo ka kaca lama fadhiyo dholondhol ceebeed haddaba ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada waxa ay nasaan waajib waa inaan kacdoon cusub dalka ka bilownaa waa inaan maryaha calaamadaha ee kala duwan iska tuurnaa oo aynu mid ku midownaa waa inaan meesha ka tuurnaa 10 madaxweyne ee dhexdeena xuduudda kala dhigay waa inaan dalkeena difaacnaa haddaynu intaasi sameyn weyno meel ku qorta ubadkeenu waxay ku noolaan doonaan gumaysi ka daran tan lagu hayo Soomaali galbeed dhulkeenuna wuxuu noqon doonaa kirin ka tirsan Itoobiya fadlan muuqaalkani la wadaaga asxaabtaada waa saaxiibkeen Cabdishaaq Gubisjeedo ilaa kaca oo dalkeena difaaca nabadgelyada